السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أول صندوقيا المركز الدفاع من جوتال وربحين تقرأ جمهورية الصومالية حكى عتذا وحكوش كانوا جامعة سليمان محمد وأحد خاطير تكهو بشع عاصمة المجال الكيساء أخوياها نوع قيمت عندها أو كسر بقني حفيزها أو تكدي عاصمة المجال الكيساء حتى waxaan ka qaadi doonaa waraysi dhinacyada baan taabanaya kaas oo qaybaha indhaha ay la xiriiraan bulshada inteeda badan oo indhaha aad uga qabata iyo sida ay wax uga duwayaan kusoo dhaw warbixinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Jaamac Saleebaan Maxamed ايوه ما سنتين تي في قرنكا magacaygu waa Dr. Jaamac Saleebaan Maxamed ku dhashay gobolka Togdheer magaalada Burco ku barbaaray waxna ku bartay Togdheer dugsigii dhexe iyo dugsigii sare Hargeysa ku qaatay jaamacadda koobaadna ku qaatay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya qaybtii labaad ee takhasuskana ku qaatay waddanka Kenya jaamacadda Nairobi University qaybtii labaadna ku qaatay dalka Ukraine bariga Afrika bariga Europe magaalada Dnipro kana soo shaqeeyay gobolada dhulka ay Soomaalidu degto intooda badan ka soo shaqeeyay ilaa Garissa Wajeer Mandera Djibouti ilaa Kismaayo ilaa Hargeysa ilaa Boorame ilaa iyo Boosaaso dhulka Soomaalidu degtana gobol aan ka soo shaqeyn waa yar yahay yacni Afrika ama qaybta aynu ka deganahay Afrika xanuunada ugu badan ama indhabeelka keena had iyo goor waxa ugu badan qaybta cataract ama caadka la yiraahdo oo isaga ay badanaa daad keento qofka duuba konton gaaro waa caadkaas uu ku dhigayaa caadkaas waa ka koobaad ka labaad waxa weeye biyo indhaha ku furma gulkooma la yiraahdo ama la yiraahdo dilaaga aamusan xanuunkaasi had iyo goor dadku ma dareemaan indhahum bay dadka ka dilaan indhihim buu beelaa qofku mana dareemo waayo xanuunkaasi waxa loo yaqaanaa tuuga aragga xada tuuguna wax shanqara male xanuunkaasina kaar iyo damqasho midna male si tartiib ah baa araggeedu waaysaado fadhiya kaasina waa xanuunada labaad ka kale waxa way qaybta quraarada isha oo had iyo goor quraaradan aragga soo gudbisaa ama bikaaca taasina had iyo goor waxa weeyaan qaybta saddexaad weeyaan qaybta afraad waxa weeyaan aragtaas oo dadka qaar aragga dhow iyo qaar aragga dheer iyo aragga dhexe intuba ay ka lumaan waxyaabaha had iyo goor imika soo kordhay markii hore inagu yara ama sababta ka ah waxa kamid ah xanuuno iyo bahla aaladahan telefoonada ama smartphone-ka la yiraahdo oo imika si qeyr caadi ah dadka si indhala ay maarta u isticmaalayaan oo aad arkaysi marka qaar shan qof oo guriga joogo shan qof aan la hadlayn shantuba ay ku mashquulsan yihiin baalkaas dabeedna indhihii muddo ka bacdi uu ku imanaya qofku isagoo ka cabanaya aragtidii waayo reflection badan quraarada isha muraayada isha ayaa wax ku dhacaya iftiin badan oo aan lagu talagelin sala jigeed hadii goor dhalinyarada waliba isma control karaan ma haday galaan iftiinkan indhahooda ku soconaya ma ogaadaan waxa kale oo isna siyaada noqday carruurta yar baa lagu aamusiinaya aaladan dabeedna waxa ku soo kordhay waxa la yiraahdo squint ama weersh indhihi qalcanay qofka yar ilmaha yar waa ilmaha yar lagu aamusiinaya maanta dhan soo qiyaastii iska fogeynaya ma garan karo xitaa waxa laga yaabaa in hoosta iska soo galiyo dabeedna muddo ka bacdi lagu kan ilmihi yara oo indhihiisu jeedaan taasina waxyaabaha imika inagu soo kordhay waxa kale jira xanuuno badan sida sonkorta iyo dhiigkarka oo labaduba ay aragga dilaan laakiin dadkeenu aanay u haysan ama rumaysnaynba taas oo qofka uu aanu isba baarinba aan macaan iska baarin macaan hadduu iska baarin aanu ogeyn inuu saameyn ku yeesho indhaha labada xanuunba wax weeyaan dilaaga aamusan baa la yiraahdaa labaduba indhaha way ridaan wax laga qabanay haddii stage-yada qaar saddexaad ama afraad gaaraan oo sonkortu ay keento waxa la yiraahdaa saameynta ay sonkortu indhaha ku keento taas waxa weeyaan dadku kuma baraarugsanaba ana sokor ban qabaa buu leeyahay sokorta ma controlayo iska dhaaf inuu indhaha waxay ku keentay ogaado hadhow iyadoo ishii xireen fadhaal kala dhaceen ayaa ishii dhakhtar loo geeyay waxa leeyahay macaan baa ishaadan dilay بالهذا إربدان كودينا إربدان هم الطريقة واي حاجة دنبه حديدة قيبته حلاقة كلا حديدة ديجا كفرمية ديجا اسمر كفرمة
dawooyin aan aad iyo aad loo heli karin ama qaaliya ayaa la isticmaalaa oo u baahan qaboojiyaal badan lacagtooduna badan tahay laga halka irbad ay tahay $300 ama $200 ama $400 haddaan talaagad ama qaboojiyaal lagu hayna aan waxba tarin qofka waxa kale ka daran waxay u baahan tahay dhakhtarkii khibradda lahaa ee irbadaasi lahaa waa irbadda kumiditaankeedu ayaa waxay keentaa ugu yaraan 10 dhibaato haddii lagu mudo aan si sax ah loo siin ama adigoo qofkii aad way arag ahayn aad ku mudiso ishka ku soo celiyo ay wax badan aad ka mid yahay oo qayb dambe ka mid tahay oo xarka go'a ka mid tahay ay keeni karto markaas irbadaas waxa gaarsiiyay qofkii isagoo aan macaankiisa controlling iyo isaga oo haddii macaanka ku dhacay aan idhihi oranahaynba macaanka aan ogeyn in indhaha uu saameeyo marka waa waxyaabo fara badan ee imika inagu soo kordhay oo bulshada u baahan in laga wacyi geliyo sababtu tahay qofku markuu macaan qabo uu muddo joogo waa in uu eegaa indhihiisa in uu macaankiisa saameyn ku yeeshay in kale xagga dambe isha si argaan u dhiman dhiigkarkuna waa la mid saas kale weeyaan qofku markuu dhiigkarku muddo qabo dhiigkarkii uu ku mashquulsan yahay laakiin indhihii marka ma dareemayo saala jigad smartphoneskaasi oo waxyaabaha ugu badan imika waliba gaar ahaan dhalinyarada xagga aragtida saameeya carruurta yareedna u gudbay oo lagu aamusiinayo iyo cudurrada iyaguna sonkorta iyo dhiigkarka oo iyaguna aan wax damqashay xanuun lahayn qofka si tartiib ah dilaaga aamusan loo yaqaano oo indhaha ka riday indhaha kulli qofkii alla waanin waanada kulli idaacadahana waa loo mariyaa dhaqaatiir badan oo way ka hadlaan laakiin dadkeenu way sahashanayaan marka dardaaranka iyo talada aan mar walba siinay waxa ka mid ah qofku hadduu macaan qabo ama skor qabo ama dhiikar qabo muddo haddii uu ku gaadhaba 10 sano oo skortu hayso aan la controlin boqolkiiba 30 buu ishaada dilay boqolkiiba 30 baa ishaada aragii maqan marka waxaa jira dad badan oo macaan qaba oo aragooda soo gaabanayo oo aan dareensanayn in skorti saameysay marka waxaan leeyahay qof kasta oo 40 sano gaadha oo macaan qaba waa in uu dhakhtarka indhahana la xiriira si looga baaro bal in uu saameeyay macaankii ama dhiigkarkii qaybta dambe isha waa in uu la xiriira dhakhtar indhood si looga ogaado halkaas ma lagu ogaan karaa laakiin qofku kala ahaana intaana macaanka waa inuu controla cuntadiina dadka wax arkaysaa dad fara badan oo qaatid wax badan bay u sheegeen macaanka ugu sheegeen marka cuntadii leeyahay bedela ma bedelayaan baastadii way wali cunayaan iyo waxyaabihii ilaa 10 ama 12 cunto oo laga mamnuuco dhaqaatiirtuna ay kula taliyeen ku macaanka ka hadlaya fara badan marka aan waxaan kula talinayaa qofka haddii macaan bahaya indhihiisana inuu ku darsado talada in indhahana la controlo macaankana la controlo dhakhtarnimo annaga qof nima dhaqaatiir baan nahay saala jigeed de marka dhakhtarku de general uu soo maray marka hore dhakhtarnimadii uu garanayaa qof kasta oo tala dhaqtaad bukaan noola yimaada waan indhaha hayna wixii tala ah ama meesha ay khusayso ayaan ku hagaajinaa way dad badan haabiya jira xanuunkan meel gaar uu leeyahay takhasus baa adduunyada la gaaray marka meesha takhasuska u ah markuu noo sheegay xanuunkiisa ayaan kaana ku hagaajinaa wixii indhaha aana tala iyo tusaale iyo dawoon annaga ayaa ugu filan 2 bilood ina muddo aan dhammaan bilya bad ayaan hadda istaarka jiraa hadda qaybtan bible qayb kale oo magaalada Barca ku taalna waa jirta qaybtan insha Allah taala magaalada qaybteeda ee kale oo gaarsiin doona laakiin waa markay dahan qaado insha Allah taala intaana talooyin badan iyo dardaaran badan waxaan ku mashquulsanahay inaan dadkeena gaarsiino wacyigelinta ku saabsan xanuunada indhaha dila ama oo sida iskortaan ka hadlay dhikarkan ka hadlay ka mid tahay iyo in ay mobilada iyo waxyaabahan maartay Kenya dhibaatada inay yareystaan wacyigelintaas qof kasta oo yimaada intaan furnayn dardaaran waxa kale jira anagu hadii goor inta badan lacag laan baan wax ku sameeynaa oo dadkii waxaan ugu dhigay maadaama bulshadeena aad ay u lidato dawooyinka discount baan u sameeynay muraadaha discount baan u sameeynay eegitaanka qofka haduu ilaahay wax la hayama jirto wata bishii Ramadaan dhan lacag laan baan ahayn hadda lafteeda qofka lacag hayn waxba lacag kuma xidhano hadduu qaliin u baahan yahay iyo hadduu daweyn u baahan yahay midna ku xidhmayno
وسود وين إن شاء الله ما دام نقولي ودكين وعي جيد بعد كتيرة أدونك حساب تمام منه شفات حديارو يهاي ودت كيس وحقبته فرنت واحد ضدكو إن أي ما دام وض الدنيا يعنتدي يوحلو يسبدلين عافمات كنين يسبدلين حتى لا دخاترتين قاطعن أو اللي بقف والبح قلت لنا يا ماشي قصص حنون كيسة إنه أنا فرمسكم يا رسانينه دكتورك حنون كيسة قصة تقص كيسة هو إنه تواصل وعرفت وحنو دريا أستاذ كان يودد وهنا هي أمته فرية هي إن أنا أدون وحلين إن أنا طلع يتصالح وحي عندها أي مكان أنا قاسين دونه وحي قلينا كوسمين دونه أنا سود وين qaybtaan u qaabilsanay waxa qaybta optometriska waxa qabtaan inay xanuunada daweeyaan inay cabirka saxaan noocyadiisa kala duwan inay caruurta aragooda hubiyaan dhammaan wixii arag ku saabsan oo dhan sixista aragga hadduu fog yahay hadduu dhow yahay hadduu age ku xidhan yahay waxaasoo dhan waxa qabta optometriska waxaa ka mid ah ilmuhu inuu indhihiisa qallacaan oo kale waxaa ka mid ah ilmihii inaanu arkayn araggii fogaa oo aanu jeclaysan inuu dibaddii ku ciyaaro carruur la ciyaaro waxaa ka mid ah indhihiisa qallaacan waxaa ka mid ah allahumma salli ala maxamed iskuulkii casharadii wixii uu dhiganayo arki waayay qallaacu marka u horeysa wuxuu ka imaadaa labadii indhood araggoodii oo wada shaqaynin ishii araggii gaaban marka haddii marka hore inta carruurta inta yar yihiin ay da-da 15 ka yar yihiin waxaa la isku dayaa in lagu saxo muraayadaha wixii intaa ka dambeeya qallaacu hadduu aan muraayadda waxba u tiri weydo waxaa la isku dayaa in qallaaca inta soo hadhay lagu saxo qalin marka hore waan salaamaya baaweynta Somaliland National Television iyada idaacadaba marka labaad waan idinku bogaadin idinku hambalyeynaa soo boqoteen magacayga Dr. Cabdiqani Axmed baa la yiraahdaa optometry department kan jooga sidoo kale MD na waan hadda ardayda final ka waan ahay diyaarinaysa marka way soo dhaweynaa saaxiibayaal soo camal soo dhaweynaynaa xaruntan xafiiskana taaka nagu timaadeen waxa weeyaan cabirka indhaha iyo sixidda aragga weeyaan qaybtan cabirka indhaha iyo sixidda aragga inta badan waxa yimaada OPD weeyaan lagu adeego dadka ka cabanaya aragtida ka dhiman ama low vision waxa loo yaqaano marka halka low vision kana lagu adeega vision therapy wax la dhaho oo sixidda aragga qaab therapysan oo therapeutiga qofkii talo la siinayo oo la odhanayo sidaas samee ma garanaysaa qaab kala duwan ma garanaysaa loo counseling qofkii loogu sameynayo baa maxay toolay lagu sameeya aragtida gaaban sa hore sheegay low vision kana loo sameeya sixidda aragga haddii aragtidu ka dhiman tahayna halkan waa lagu saxaa aragtida waa lagu saxaa iyadoo la adeegsanayo khibrad muddo dheer aan ku shaqaynaynay aqoon hufan iyo aqoon wanaagsan iyo adeeg hufan qalabkiina wada yaalaan dhammaantood sad aragtaanba ayarkii u yaala ma garanaysaa kaasoo soo saara aragtida inta ka dhiman qofka autograph keratometer baa loo yaqaanaa sidoo kale waxaa yaala AB scankii oo ma garanaysaa loo adeegsado qaliimada loo adeegsado sidoo kale qofka aragtida inta ka dhimanna uu soo saara sidoo kale waa scan isha xagga hore ilaa xagga dambe lagu scan gareynayo sad aragtaan AB scankina oo ka waxaa jira sidoo kale instrumentka halkaa yaala oo loo yaqaano IOP ama intraocular pressure loo yaqaano intraocular pressure-ka inta badan dadyowga wuxuu soo saaraa pressure-ka isha cadaadiska isha intuu marayo waxaana loo isticmaala dadyowga glaucomada leh ama dadyowga suspicious-ka glaucomada ama mid qarsoon ha noqoto ama mid caadi oo la arki kara ha noqoto labadaba soo saara sidoo kale subjective-kiina oo ka weeyaan marka la adeegsanayo fiida sida caadiga dadku wada yaqaanaan kaasi dadku wada yaqaanaa waka halkaas subjective-kana lagu saxaa garateen marka inahana waan qaabilsanahay waxaan sidoo kale sameynaa screening inaanu sameyno screening mudaysan bishiiba aanu iskuulada kale u baxno programka hadda waanu bilaabina insha Allah ka dhigo sidoo kale aanu ugu faa'iideyno aqoontayda iyo khibradayda waaragnimadeedii dadweynaha iyo ardayda iskuulka gaar ahaan waa lama yaqaano ardayda ilmo yar baa ku imanaya oo dhanaya almost sanad xagga dambe haddaan fadhiisto waxba arki maayo xagga hore haddaan fadhiistaan arkay marka waa negligence waxaasoo dhan wada negligence dadkeenuna uma carbisna hadday waalid noqdaan haddii kaleba marka waxaan kula talinaya iskuulladu inay sameeyaan pre-school screening inta ilmuhu aanu kalaaska fadhiisan
in iskuullada qaar leh way jiraan wayna ku ammaanan yihiin laakiin iskuul iyo jaamacad baa intuu ardayga galaaska fadhiisan xafiis yar in la joogo qof optometria dhakhaatiirta indhaha in loo yeedho cabir in laga qaado ilmaha si loo ogaado intuu maray hadhow xataa waxay fududaanaysaa ilmahan daweyntiisa way fududaanaysaa professionkiisa iyo waxaas oo dhan ka hortagga aragtida ka lumaysa oo dhan way fududaanaysaa aad bay u fududaanaysaa ma garanaysa marka kambayno kalaa jira iyaguna aanu maxay toolay hadda aanu wadnayba bishan abril waanu wadnay kambayn qaliin baanu wadnay abril bilaa koo soddonkii bilaabmay bishii saddexaad ee dhammaatay aan dad iyagu badan uga faa'iideynay qaliinka caadka indhaha gaar ahaan ilaa abrilna socon doona insha allah ilaahay ka dhigo dadweynaha waxaan leenahay marka sidii dhakhtarka horeba sheegay qaliinku waa free qofka waxba laga qaadi maayo waa bilaash kasoo qayb gala dhakhaatiir si hufan idinku shaqeynaysa hagar la-aan aqoonna leh qalabkiina ay ku shaqeynayna yaalla garanaysaa ereyadii iyo environmentkii u diyaarsanaa in qof bukaana lagu shaqeeyana leh baa idin diyaara soo dhawaad marka anigu dalka gudihiisaan ahay dalka gudihiisa laakiin waxaa jirta trainino aan u baxay jiro dadka dalka dabadiisa ama Asia ha noqoto ama ha caafimaadka oo indhaha gaar ahaana waxaad ka dhawaysay inaad si fiican u qabataan ilaasha cidda idinka maalgelisa maadaama dee kiraad ku jirtaan way qorbisaysaan shaqaala shaqaynaya cid gaar idinka maalgelisaa jirta markaa arrintaa wallaahi intaa horta qofku waa beeshan weeyaan beeshankuna cadibaad uma baahna albaabka markuu ka soo galo qof xanuunsanayo bukaana ku socda ma garanaysa qofkan inuu iska bixin karo inuu iska bixin karin the most important thing waa qofkina adeeg u qabatid weeyaan haddii kale etikiskii caafimaadka baad meel kaga dhacaysaa qofkii markuu albaabka kaga soo galo waa inaad caawin kartaa waxaad ku caawin kartaa ku caawiso hadhowto wixii service ahaayee xarunta maxaad garanaysaa dib loogu celinayay qofku wuxuuna waa iska bixin karaa qofna waa iska bixin karaa qofna waxa odhanaya har wax ma haya aniga marka qofkii aan waxba bixin karin ama wax ka dhiman yihiin in lagu dhibo maaha ma garat in lagu dhibo maaha marnaba waayo caafimaadku meel lacag laga sameeyana maaha meel laga ganacsadana maaha waa meel qofku markuu halkaa kaaga soo galo aad dareen dhakhtarnimo dareen biniaadanimo aad qofka ugu shaqeynayso weeyaan in qofka lagu xujeeyo fee yaroo laga qaado laazim inaad bixisid no qof kaadhka haddaan awoodeyn why just you have to serve him qof bukaanoo ishii da-ayso malaxdii ka da-aysaa ku imanaysa mid hematomo dhiig la ku imanaya mid bain gebiisba aad u baahan qofkii inta anti bain la siiyo la kergareeyo ayaa ku imanaya you have to do whatever wax kasta samayn karta qofkii u samaysaa hadhow markaad qofkii beeshankii saarf garaysid kadibna wuxuu iska bixin kara qofkii hadduu de full payment way u sheegaysaa khasab kadib marka dambe haddaan de u dhaadaniyo sidii saasaan ahay waxay toolay waa khasab weeyaan wasaaradda caafimaadku wada shaqeyn wanaagsan baa naga dhexaysa laysankeeda waan haysanaa laakiin cooperation intaa ka badan oo kasii dhiib garaysan inaan la samayna doonana insha allah dhakhaatiirtu horta kow in la dareen noqdo bulshadooda waa inay qofka patientka ay u shaqeeyaan weji ilaahay bulsho weynta waxaan kula talinayaa in ay ku qanacsanaadaan adeega ay siinayaan dhakhaatiirtooda ay ku kalsoonaadaan qofka beeshinkiina ugu tago dhakhtarka takhasuskiisa leh daawadayaal barnaamijkan gaarka ayaan ka diyaarinay dhakhtarka shafaad ee ku yaalla caasimadda magaalada hargeysa intaa ayaynu waraysigaasi gaarka ah ku soo gabagabaynaynaa waa sidaa iyo nabadgelyo